heritage aad baan ugu mahadcelinayaa maadaama ay noo keentay kii dibadda lagu qaban jiray dalka ay research badan samaysay wasiirka qorsheynta caynta oo xog badan hayana barnaamijkan uu aad ugu feejiga og yahay aad baan isaga ugu mahadcelinayaa inta kadib su'aashaydu waxay tahay waxaan weydiinayaa mar walba waxa soo noqota marka la joogo xilliga doorashada in la yiraahdo oo kelmadda nagu cusub saamilada siyaasaddu hadda soo baxday oo hadda inagu soo korodhay marka mar walba oo doorasho timaado maxaa keena in ay noqoto isjiijiid iyo isqaqabsi soo ma ahayn in madaxweynaha dalka iyo dowlad goboleedyadu ay ka hadlaan doorkii hore waa ogeyn waa la isu imanayay laakiin mar walba waxa loo yeeranayay in la yiraahdo beesha caalamka wax nagu ogow laakiin maanta waxaan yeelanay dowlad ku meel gaar ka baxday wax walba soo celisay in aan la fadhiisano oo aan weydiino oo naraahno waa kan ha loo guuro xalku maaha marka ceelal iyo heshiisa reer madcabaan khayraadka iyo waxan kale waa laga gaari karaa tayada labaad aan ka hadlayaa waxay tahay aqalka sare ee baarlamaanka muddadii xasan sheekh joogay waxa waqtiga ay ahayd xasan sheekh oo ah tartama ra'iisul wasaare Umar Cabdishiid tartamaha iyo jawaari oo rabay inuu u sharaxan yahay aqalka sare aniga waxaan ka mid ah xukuumadda Cabdiwali waqtigaas waxa hormuud noogu ahaa madaxweyne ku-xigeenkii Puntland Cabdixakiin Xaashi Cumar Camey isagoo raadinaya aqalka sare maadaama ay ahayd konton iyo afar oo min saddexa 18 gobol la israacshay isteediyo gobolada waqooyi aad ka hadlaysaan ma goboladii waqooyi 60kii Jumba mise waa 1991 lagu qaybinaya aqalka sare hana loo cadeeyo saddexdii Puntland waa la helay saddexda Somaliland ku maqan ee gobolada waqooyi Sool iyo Sanaag hala cadeeyo ma santa wasiir xildhibaan dalxa ka bacdina safkaasaan u gudbaa safka oo madaxdu ay joogto ugu dhibka badan kaasoo ah dalxa بسم الله الرحمن الرحيم marka ugu horeysa waa salaamaya dhammaan ka soo qaybgalayaasha shirkan qiimaha leh marka xiga waxaan u mahadcelinayaa hay'adda ama maaxadka heritage runtii dadaal badan geliyay oo xaqiiqatan waxa uu sameeyay wax mucjiso ku ah runtii dadka Soomaaliyeed waa arintaasi waa bogaadinaya dhalinyarada aqoonta leh ee Soomaaliyeed ee dadaalka qabatay dad badan inay qabtaan hortooda ay ahayd tan kale madaxweyne Deni xukuumaddiisa iyo shacabkiisa sida diiran macal ciidamadiisa ay noogu soo dhaweeyeen magaalada madaxdan Garowe ee Puntland iyadana waan ka mahadcelinayaa su'aashaydii aan gelayaa marka jawaab waxaan Soomaalidu waxay tiraahdaa nin walba meeshay bogto asay balbashaa nin heesaan wuxuu yiri nin walba wixii dhibaabu ka dhigtaa tilmaan meel la dul maray 4.5 ah ayaa xanuun igu haysa waxa yeelay ninkii shaacirka wuxuu yiri laa yacrifu alam alhubb illa man yukabiduhu jacaylka ma garto ilaa nimu hayo mooyaane wala sababata ilaa man yucaaniha oo hintana xanuunkeeda ma dareemo ilaa nimay ka da'aysa mooyaane 4.5 December waa la soo hadal qaadaa waxna lagama qabto odayaasha halka iskugu yimid ee kulligooda madaxdeennii waxa horay noo soo taliyay wax hadda talinayo kulli isku wada dar nin maanta fikirkii looga bixi lahaa si aan uga dawowno intuu miiska soo saaray xataa barnaamijka loogu daray wada tashi iyo wadar ogol ma jirto marka waxaan rabaa inaan weydiiyo aniga luqadda aan ku hadlayo mid siyaasi mid diblomaasi ma aha waa mid shaarica dadka ay gubayso Soomaalidu afar bay hadda ay wax ku dhaqantaaba dadka ay aaminsan yihiin 0.5ka ayagoo ilaahay kaamil ka dhigay nus laga dhigay in iyadu tashata in lala tashto in laga tashaday iyo in loo tashtay inay Soomaalidu ka qooban tahay marka dadka loo tashaday ee aan wada tashigii wax ku lahayn wadar ogolkii aan ogolaansho laga haynin haddii ay isku haystaan dadkii qadadii quraacdii cashadii iskugu toostay
أنت صدح قدك يا أمقن ما تسنت حلو يا الله غلط شنيا سؤال في عون سيد دستورك الله راعي حقوقه ولو سميه هي مواطنين تضلك لا يرن ما موقته عدالة لو سميه هي هلا أركو ما تسنت هذا وما سنتي عبد الله وزير كمالية بنتلان كدبنا مهد صلاة كدبنا فرح شري سدح داسان قادنا because انت كومنت سي وبدناين سؤالها ده هيسان فضل سؤالها نويدية هل سؤال بسم الله الرحمن الرحيم سؤال شيء كواد waxaan rabaa inay ka jawaabaan haddii rabbi madaxweynihii hore xasan sheekh gudoomiyaha baarlamaanka iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka mahad su'aashaasi waxay oranaysaa mudanayaan haddii la gaaro 8 February inagoo aan wax ku heshiin maxay noqonaysaa talada dalku aad iyo aad baa u maasashin su'aashaas su'aashay ugu xigtaa waxa weeye su'aal labaad halka ragga fadhiyo oo maanta raba Soomaaliya inay wax u hagaagaan dhammaantood Soomaaliya u soo shaqeeyeen dhammaantood markay joogeenna waa la cabanayay isbiishal annaga hadda Puntland sharciga batroolka markii la ansixinayay waa qaylinayna maca madaxweyne maca kuwii noogu jiray baarlamaan kullu waa qaylinayeen gudoomiye mursal iyo gudoomiye cabdi xaashi waa gudbiyeen annagoo qaylinayna xilligii xasan waa qaylinayna annagoo le warkadaaya baa wax walba la marayay marka haddeer haddiiba aynu doorasho u soconno raggiina wada sharaxana aatiin raggii hore maxaa isbeddela oo imaanaya oo wixii hore laga cabanayo aad samayseen isbeddel ka imaanaya aad iyo aad baa u mahadsantahay xildhibaan mahad salaad kadibna wasiir faarax cali shire su'aalahaasoo kale aan rabnaa oo saas tooska u ah بسم الله الرحمن الرحيم مركب كوباد ومدرسة هيرتيج وأمهات علينا صدح شيء كوبان الربعاني أنا كهالله ومدرنا دمسترك دستور كايتا منا أمنيجا منا سؤال عن وقب قدوميه هيجا محمد مرسل لكن أنت أنا قلين وعن ربع مركب كوباد صاحب كي رجل وزارة حجين كما تقول دحوجري أرنتي وريق كوبادان كقاضينا دور شذا وكعذر دارنا هو رال قلنا وكبحنا حالنا وكديبه أنا كان وعن ربع إن الرال قلنا كبحيو حالنا كديبه عيرتي عنكم ماما صاحبك وزير دبنا واس ورئيسنا يود رئيس الوزراء واسكت سهرينه مركان قرابة هذا الناي أسكنا رالي هوان سجونية أولية هيوان هشيم أنت اسكدب أرنت هرت الدستورك مركا قاركود فدرالك ضد دراية أياد أركيسا ماشان هرتا أما هير فدرال أن كجوجنا أما هير دولة قبلة أن كجوجنا دستورك أياق حي أوذها يسترجع كدولة نبدو أيارنا يسقط كأفرتني زدادات دستورك أيين وكقرنته لكن وحاجرة شروع دي للربي إن يستلدق نقطة فدرالك أولي أن سمسناي أيضا دستورك آيات المام وحنا كوكا جدية كسر شقين يا لما يسترك الشروع ده سي فدرالك وهرجل وقضبك بقول صدني صدحات يقضبك بقول صدني أفراد وكهالي sidoo kale waxaa jira arrimo dastuurku tilmaamay oo in laga heshiiyay ay tahay oo dib eegista dastuurka si federaalka u meel maro la yiraahdo lagu xus oo ay kamid tahay qaybsiga khayraadka dabiiciga oo qodobka 44 uu ka hadlay iyo arrinta ku saabsan awood qaybsiga siyaasadeed oo 54 iyo mabaadiida maaliyadda سؤال قال حلو عن هذا محسن وما سنتا وقال إن شاء الله سؤال قال فضلا وحاك له جرا لبا قضب وأيضا مهم أيوتا فدرالك إلا عندما يسترك فدرالك لقى اللي الدستورك ومقامك مقالة مقدشو إيو أرنت الجنسية دوي كميتا وحاربا مركا أرنت أمنية سيدا على سعودين شركة مقدشو لقوق لشان يتومنكي إلحي يتومنكي أبرين إيو شركة كوي يتومنكي ميل لقوق لندن markii laga hadlayay arrimaha amniga saddex qodob ayaa la soo qaato ku saabsaneed dhismaha ciidamada qalabka sida ka bixitaanka Amazon iyo sidoo kale maalgelinta ciidamada oo dawladaha naga taageerayana qayb ay ahayd qaybuna ay ahayd arrinta ku saabsaneed Soomaaliya maxaa ku soo aaday waxa dareemay marka amniga markii la beesgareynay baarlamaanku xilligiisa waa ka hadlay wax lagu beesgareynay ciidamada inay u dhismaan Soomaaliya inay sanahayn duruuf markaas madaxda joogta ay ka fakarayday sidii awood ay ugu yeelanayaan systemka dawladnimo ee markaas gacanta ay ku hayaan marka aniga waxaan qabaa inaan ciidamada la siyaasadaynin ee siyaasadda laga dhax bixiyo si ciidamada ay u dhismaan amniguna markaas ay u sugmi karaan su'aashayda oo gudoomiyaha aan u qabo
mudana guddoomiye 16kii bishii December waxaa jirta waraaqa u qortay guddoomiyaha aqalka sare oo aad uga codsanaysa kula wada jira labada aqal ee baarlamaanka federaalka inay isugu yimaadaan oo wax ka bedel lagu samaynayo qodobka 136 ee dastuurka ay suuragal noqon weyday baarlamaankan hadda tobnaadee jira inuu dib eegis ku sameeyo dastuurka si meel mar ay u noqoto 15kii June ayay 2016 markii baarlamaankii sagaalaad asaga ruuxiisa inta suuragal weyda muddaxileedkiisii la yiri dib hal loogu dhigo baarlamaanka tobnaad mudana guddoomiye 24kii bishaan madaxweynuhu wuxuu saxiixay xeer oo leeyahay dib ayaan u dhigay dib eegista dastuurka sida qodobka 136 ku qoranna waa qodob dastuuriya oo u baahan wax ka bedel golayaasha baarlamaanka inay ku sameeyaan waxaana tilmaamaya qodobka 63 ee dastuurka maxay ku dhacda mudana guddoomiye horta inay suuragali weydo kulankii aad ku baaqday oo aqalka sare iyo golaha shacabka la isku keenay oo qodobkaas lagu saxay tan labaadna waxay tahay xadgudubka dastuuriga oo qodob dastuuriya oo golayaasha baarlamaanku ay leeyihiin madaxweynuhu uu xeer ku soo saaray asagoon soo marin golayaashii baarlamaanka guddoomiyaha aqalka sare waa ka hadlaya maxaad uga aamusta mudana guddoomiye mise awooddii golayaasha baarlamaanka ayaa si dadban madaxweynaha ugu wareejiday waa mahadsantahay aad mahadsantahay waxaa ugu dambeeya wasiir faarax cali shire بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعد marka hore waa salaamay shirka marka labaad arrin su'aal uu weydiiyay madaxweyne xasan sheekhna waan ka jawaabaya hal su'aalna waan weydiinayaa banalka su'aasha uu weydiiyay wuxuu yiri idinkaan idin weydiiyay heshiisyada la galo maxay u buraaniin madaxweynaha waxaan leeyahay heshiisyada la galo markii hore aan loo marin wadadii sax ahayd waayo intii madaxda ahayd kaliya baa shiraysa technical in loo diro oo iyagu ay ansixiyaan bay ahayd waxa lagu heshiiyo markay soo noqdaan cid walba cid baa ka dambaysa waxa la yahay waxaas ma jiraan taas waa mid tan labaad waxaan oran lahaa dastuurka waa laga hadlay federalismkana waa laga hadlay federaalku ma aha wax maalin iyo hal xilli oo madaxweyne joogo ku dhamaanaya ma aha kuna saxmaya laakiin dastuurku ku dhamaanaya su'aasha aan rabo inaan weydiiyo waxa weeye wadanka 2018 waxa la geliyay chapter 7 United Nations Charter markii la soo magacaabay John Swan wadamada la geliyay chapter 7 waa naqaanaa waxa loo geliyay effectiga ay ku yeeshaan wax effectiya muxuu ku leeyahay chapter 7 iyo shuruucda Security Council soo saaray nidaamka aan inagu maanta ku jiro iyo hawlaha inaan dhex meeraysanaya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما تنتين مدحنا عن كعد سنة وقتنا آذن وكوبين يتمنى غاهي سناسي عن ظهر كي بريجي وآدنو مركز قدومي أذيك عن كوب بالله بسؤالها إن بدنا أذيك كوب سعودين. إن جوابت وحن ربعتنا حلبان كنا عن كوب بالله. مدن حلبان ورنطة aqalka sare ee baarlamaanka federaalka warqadan u qornay waxaan ka codsanay inaan wada fariisanno oo aan raacno jidkii hore loo soo sameeyay oo baarlamaankii sagaalaad sameeyay sidaad la socotidba markii ugu horeysa qodobka 136 wuxuu siinayaa awood baarlamaanka koowaad oo baarlamaankii sagaalaad ahaa inuu dib u eegista dastuurka uu ka shaqeeyo isla markaasna faqradda labaad waxay qoraysaa in afti dadweyne la geeyo dadweynaha laga hadlayo waa dadweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya qodobka koowaad oo dastuurka markaa fiirisidna midnimada wadanka ma kala go'i karto waxaa maqan gobollaha ka maqan wadanka waxaa kaloo meesha ku qoran qodobka 141 markaa fiirisid aftida waxaa lagu geynayaa sharci baarlamaanka uu sameeyay ayaa qeexay qaabka loo geenay dastuurka afti markaan u soo noqono markaa annagoo ballansan in madaxweynaha uu soo saaro dikreeto uu soo saaro sax inay tahay inayna sax ahayn waxaa ka jawaabaya maxkamadda dastuuriga iska leh aniga ma lihi because qodobka afraad ee dastuurka kumeel gaarka markaa fiirisid sharci kasta ama tilaabo maamul kasta faqradda labaad
maamul kasta oo aan waafaqsanayn dastuurka waxaa burinaya maxkamadda dastuurka ayaa ku qoran waxaan ka soo qaadaynaa hay-adaha dastuuriga sida baarlamaanka ama xukuumadda haddii shuruuc ay soo saaraan markaa kadibna uusan waafaqsanayn dastuurka dadka la rabo waa maxkamaddii dastuuriga ah haddaan dib u noqonno qodobka 99aad sharcigii dastuurkii 1960ka maxkamadda sare oo tashkiil lagu sameeyey ayaa waxay geli jirtay maxkamadda dastuurka marka jawaab uu soo qoray madaxweyne dekreeto uu soo qoray instituushanada gudaheed sax waay sax ma aha maxkamaddii dastuuriga laga rabaa aniga ma amaasanta okay waa su'aal fiican 8 February wixii 2016 dhacayaa dhacay 2016 maxaa dhacay isla wixii 2016 dhacayaa dhacay waa la socoteen 2016 baarlamaankii federaalka wuxuu ku ekaa bishii 8aad waa laga gudbay bishii 9aad 10aad 11aad 12aad baarlamaanka 27 December ayaa la doortay aan ka bilowno marka laga bilaabo aan ka bilowno 8aad oo waqti uu ka dhamaan lahaa 9aad 10aad 11 12 January February farmaajo la doortay waa 6 bilood oo madaxweyne xasan sheekh uu joogay wuxuuna ku joogay sharci la'aan kuma joogin madaxweynaha wuxuu ku joogay sharci number 20 ama number 20 ayuu ku joogay oo asaga uu saxiixay isla sharcigii oo xilligaasi madaxweyne xasan uu saxiixay ayaan annaga tix raacaynay iyo qodobkii 6aad oo la bedelay isla tii haddana madaxweynaha dekreetu ku soo saaray marka 2016kii sidii xasan sheekh uu ahaa hayraal saaxiibkii ayuu ahaanayaa farmaajo 2021 ilaa madaxweyne uu ka yimaado uu joogaya madaxweyne xasan sheekh aan u dhiibno marka aan weydiino asagana ileen asaga carrada joogay aynta maadsan tahay gudoomiye mursalna ra'yigiisu cabiray waa maadsan yahay laakiin waxaan rabaa dadka inaan u sheego sax maaha gudoomiye mursal siduu cabiray sax maaha horta baarlamaankii 9aad waa run bishii 8aad waqtiga ka dhammaaday bishii 8aad ha mase bishii oo ka dhammaaday waxaan rabaa bishii 9aad la joogay bishii 10aad horta baarlamaanka waa la doortay doorashiis waa bilaabatay waa socotay waxay u socotay oo ay waqtigaas u gaartayna doorashada baarlamaanka socotay ee mas'alada maanta uu xildhibaanka ama qofkii su'aalay wasiirkii wasiir xasan shire su'aashu keenana waxay tahay 8 February hadii la gaaray waxbana aanay soconin hadda wax ma socdaan January-an galnay February-an galoo haynaa February 8 hadii la gaaray ayagoon waxbana soconin maxaa dhacay waa su'aasha laga jawaabay baarlamaan nusna la doortay nusna oo doorashadiisa socoto ma ahayn gudoomiye waxa laga hadlay waa bishii 8aad u dhamaaday bishii 9aad hawsha socotay doorashadaas socotay bilaabatay bishii 15 bishii October 15keediina xildhibaanadii la doortay qaar kamid ah meeshaan ay fadhiyaan marka iskuma dhiganta arintaas waa qodobka kale spiritka mas'uuliyadda annaga markii baarlamaankan waqtigiisa dhacay madaxweynaha waqtigiisa inta una dhicin dekreetan soo saaray aan leeyahay xukuumadda oo maanta dawladnimada inta jirtaahay wax dhaqdhaqaaqa oo ay samayn karta ma jirto qof lama magacaabi karo qof lama bedeli karo safiir lama magacaabi karo kaas lama yeeli karaan dhahna kulli waa wax walba stand still ay ku jireen waxaan ka ahayn doorashada inta lagu socday dabcan iyo routine administration bisha haduu dhamaado mishaarka hal la bixiyo wax la mid ahayd haddana shuruuca la ansixinaha la isku haystaa sharciga la ansixinaha la isku haystaa guddiga adeeg garsoorka misaal loo soo qaaday wasiirkuna yiri waa la xalaaleeyay waa ra'iisul wasaar ku-xigeenka with all due respect waa lagu noqday sharciga hadda la soo ansixin ma dheena waa la xalaaleeyay yiri guddiga ay soo magacaabeen sidoo ku yimid sharci ma ahayn sidoo lagu meel marina sharci ma aha sharciga u qoran adeega dastuurka establishment looga u qoran marka la raaco sida loo sameeyay sax ma aha guddiga sidoo ku yimid xubnihiisa sida lagu keenana sidii sharcigu tilmaamaya ma aha sida loo meel marsiina markii hore inaan sharciyan asaab sheego waa lagu noqdo laakiin xalaaleyn ma ahayna in dib loo soo ansixiyay ahayday
baarlamaankii wakhtigiisu dhacay waxba ma ansixi karo shaqo rutiinuhu wadi karaa xaq uma laha inuu wax ansixiyo mahadsantahay madaxweyne xukuumaddiina ayadoo dastuurka meel ay ku qoran tahay ma jirto madaxweynaha ra'iisul wasaare ku meel gaar uu meel hebel u magacaabi karaa shaqada kaliya ee madaxweynaha xafiiskiisa ka bilaabataa waa inuu ra'iisul wasaare magacaabo shaqo kaloo ka bilaabato waa la soo sheegaa madaxweynaha xafiiskiisa shaqooyinku ku soo dhammaadaan kama bilowdaan ra'iisul wasaare inuu magacaabo karo 30 maalmood oo la yaqiinay dastuurka haddii laga waayo dastuuradii hore muga loo noqdo 30 maalmood ay ku qorneeday spiritka waxaa hadda aan ka hadlayna waxa waaye spiritka dawladnimada iyo sensiga dawladnimada dadku ay xambaarsan yihiin waaye farsamo ma aha dastuurkan maalintii la keenay oo 17 laga soo bilaabay ilaa maanta maalin walba la soo abuse gareynay ma ugu noqonayno waxaas meeshaana meesheedii maybe inaan ahayn laakiin waxaan rabaa inaan kala cadeeyo midaas 8 February haddii doorasho aanay dhicin wixiina aanay soconin oo sida hadda stalemate-ka loo taagan yahay oo kale hadday wuxuu ahaadaan haddii wixii socdaan baarlamaanka ama joogo ama jidka ku soo jiro waa acceptable waaye waa la aqbalayaa waxay inta muddada oo maalmo iyo usbuuciyo iyo bilo whatever ay noqotaba laakiin meeshii waxba kama socdaan hadda la joogo waana u jeednaas weli sidii ku socon lahayn mashiinka lama dhaqaajinin weli baabuurku waa dansan yahay waa taagan yahay midda khatarta oo laga hadlaayo aniga su'aasha wasiirka xasan shire aan u fahmayna waxa waaye 8 February haddii ay timaado ayadoon waxba dhicin waxa waaye waa unexplored territory waxa la yiraahdo ma naqaano wax dhacayo barkay weligeed ma soo arkin mahadsantahay madaxweyne taamka hadduu dhammaado ama waa noo joogi jireen dadkii aan soo dooranay ama jidkay ku soo socdeen war maalmo u dhiman xaggaasay soo marayaan hal sugaan lahayn laakiin hadda haddii 8 February la gaaro baarlamaan aan lahaynin anuu soo soconinuu jidka ku soo jirnuu soo muuqanin maxaa dhacayo aniga kale waxaan leeyahay waxa dhacaya ma naqaano waxa waaye waa walaxan hore noo soo marin waaye madaxweyne waa mahadsantii waxaan rabaa